ti waxa la geeyay Ethiopia tagay marka horta dadkaas meesha ku nool yihiin ee rafaadka ah waxa laga yaabaa hooyooyin inay leeyihiin we gave up meelan carruurtayda ku noolaataan rabna we don't know dadna haday cidina horta kama soo kaxayn karto dadka dhulkooda haday doonayaan laakiin dad baa dhici karta daalay oo leh aanu noolaano meelan la geeyo marka hadii dad saas inoo yimaadaan de wax bilaadanimada ka baxsantay hadaynu niraahno maya marka de situation kama ogin adduunka system ku shaqeeyana de system ku salaysan islaamic ma hayo waa international law maxaa la yiraahdaa ku shaqeeya ka wax ka baxsan de waxaynu inagu aaminsanahay marka hadda inagu adduunka ma xuquuqaha bini'aadantinimada hadiya international xuquuqaha bini'aadantinimada lagu shaqeeya ku socdo marka de waxa weeyaan inagu inaynu ka niraahno qaxooti ma aqbalayno de maaha waxa inaynu afkeena ka nahay inagu wada qaxootiyo adduunka meel walba taagano meel walba ina caawisay wixii la inooga baahdo haddii de wax aynu isku raacnan tahay oo aynaan iska diidi karaynin de waynu aqbalayna qof yidhi qaxooti baana hada international community-gaynu ku jirnaa de inaynu noqono wadan ragwi state oo adduunka kasoo horjeeda de ma rabno waa inaynu adduunka baynu ka mid nahay wixii lagu taliyun baynu qaadanayna laakiin inagu nidhaahno qaxooti ma aqbalayno de maaha iyo dhul baa laynaga qaadaya iyo waxyaabaha caynkaasa de waxaa anagaba dhul dadeed baanu tagnay oo nana aqbalay ka qofku qaxooti wele muwaadinimada hagaajiso systemkaaga hagaajiso muwaadin inuu qofku yahay u sheego de xadad kala samayso laakiin anigu qaxooti ma aqbalayo weligeeda qaxooti la aqbali jiray ilaa qarnigii goormade marka de waxaan anigu leeyahay waa loo wada joogi meel fiican baad ka wadaay marka eeg dadkeena qaar ay leeyihiin dal baanu nahay Somaliland la yiraahdo madax bannaan wadan jira taariikh leh at the same time marka la yiraahdo qaxooti ma la qaabilaya cabsidan wala la dhaxal wareejinaya iyo khataraha ka imanaya iyo xagee arintaas ka imanaysa de waxa weeyaan anigu garan maayo waayo wadamada jaarkeena oo dhanba dad baa jooga aanu dhalanin oo degan de waxa weeyaan systemkoodu baan saxayn meeshan unba meel suuq madow in laga dhigo oo aanay horu marin oo aanay adduunka ka mid noqon loo jeedaa that's anigu what I think haddii adduunka loo jeedo de dadka ku degan ee muwaadiniinta haba la ixtiraami lahaa oo muwaadin baa horta la quweyn lahaa markaas dadka kale markay noo yimaadaan de dad aynu aqbal maxaa la yiraahdaa aynu hoysiinay oo qaxootiye noqon lahayd laakiin systemkii oo waxa waxa baananka loo diidayo marka anigu waxaanu arkaabay marka arrinkan ay makaabad ka dhawaajiseen arrin de adduunka oo dhan baa ka soo horjeeda sida adduunku u dhaqayeen inuu dhaqano marka waaba hibo waad mahadsan tahay qodob baan doonayaa inaad ku darsato waxaanay imika dadkii inta badan hadlayaanay ku darin benefitka ku jira qaxoontiga laftiisa waayo imika haddaad eegto tusaale ahaan wadamada khaliijka wadda ka soo qaado dee cidda u shaqaysaa waa immigrant cidda dhakhaatiirta uga shaqaysaa waa immigrant cidda guryaha u dhista waa immigrant cidda maxaan ku idhahdaa wax walba u qabataa waa immigrant yani boqolkii qof ee meel taagan ee carabta aad arkayso 80 baa immigrant marka haddii aanay immigrantkaasi la joogin de waxa weeyaan dadkooda iyo waayeelkooda iyo waxa weeyaan horumarkooda de qayb laxaad laba immigration ka ciyaara sida iyagu ma carabta oo kaliya ma Mareykan waa adiga arkay Canada waa adiga arkay very important sector weeyaan immigrantku sideedaba de immigrationku imika tusaale imika markaad madowga kale eegayso Ingiriiska waxa madowga ku faanaan annaga dhisnaa underground-ka London underground-keedu waa tareenka dhulka hoos maray waa ka ugu weyn dunida waxa la yiraahdaa madowgii baa dhisay ma garanaysaa immigrant-ka ahaa ee Caribbean-ka iyo Afrika ka yimid ayaa dhulka aad arkaysa in dhumucdiisa ma garanaysaa intuu kala leegi Ilaahay ba tacajub ku keenay sida loo dhisay waxa dhisay waxa immigrant ayaa u badnaa marka waxa weeyaan inagu dhinaca positive-ka hadaynu ka eegno maxay helayno laano waa dadkani skills iyo aqoon iyo xirfad ay noo imanayaan mid kale haddaad imika eegto gobolkan Togdheer iyo wixii ka sii shisheeya de waxay ka weyn tahay 13 jeer bay ka weyn tahay Imaaraadka Carabta iyo Kuwait iyo Bahrain iyo Oman
iyo maxaan ku idhaahdaa Israa'iil iyo Falastiin oo la isku daray ka weyn gobolkaas sanaagiyo sool baa ka weyn waana cidla boqolkiiba waxaan oran karaa 95 waa cidla waa empty waa no man سعيدة واقف فهمي هالكاد جيدو مركا waxa weeye horta quraanka bay noo sheegay haday dadku isolation ku nool yihiin oo mainstreamka adduunku sidoo nool ka baxan reer miyi bay noqdaan imka reer miyi bay noqon isolation garayna ku jirno sax iyo khaladkii garan mayno wax halkaas aynu isku urursanay baarlamaan kolba la iibsanayo marna communist baynu u tagaynaa marna islaamist waxa weeyaan waxaaniba wuxuu noqday dad aan adduunkiiba ka baxsan oo isolated oo aan maxaa la yiraahdaa ilbaxnimo ma jirto marka adigu afartan qof ay taqaanee nomadka ka yimid magaalada isugu timoona soo sheekaynaysaan waxa weeyaan doodii baaban hagaagsamanayno waxa weeyaan behind baad noqonaysa marka inay dadku ku noolaadaan meel metropolitan oo deemaka dadkeeni xadaarada lahaa berbera waxa ku noolaa hindi yahuud arab wax kasta imaka waxaynu noqonay deynta miyiga laga soo guurma magaaladii la fadhiya dadkeeni miyigu bayno halkan baynu fadhina ma yahay sida Soomaaliland wixii xadaarada oo keenay dadkeenu ay u tagi jireen meelaha fogfog trade-ka wala lahaayeen waxay berbera Suudaani ba joogtay nooc kasta joogay xadaarada saas lagu ilbaxa laakiin imika meesha la inagu haya waa container waxa imika waxa jirta hiboy 3 habeen 4 habeen waxa fadhiyay madaxdeennii waxay fadhidaa wadanka Imaaraadka Carabta magaalada Abu Dhabi waxaanay la fadhiyaan madaxdii wadankaas la fadhiyaan inta badan madaxdeenu teekidiisi bay haydo noloshu way isaga fududayd because decisionada ay sameeyeen inta badan iska local bay ahayd tough decisions wali ma arag arrimahan international ka iyo communication caalamiya iyo cid inooga baahatay wax inta badan ma arag wax yar oo la siiyo ay la ordaan oo ay waxna boobaan waxna meel dhigtaan waxna ay daadiyaan ba hawshoodu inta badan u badnay laakiin maanta xasaasi weeyaan dunidii resource-kii baa iska soo koobtay technology baa isbedelaya carabta hadalkiisa iyaga laftooda warwar badan baa haya IMF to report-kii ay u dirtay dunida carabta waxay ku yiraahdeen 2035 markay taariikhdu tahay haddaydan ka guurin dhaqaalihiina ku xidhan batroolka waxa weeyaan dabtii aad haydeen 70 sano ka hor ayaad waqtiga cunaysaan you have to change baa lagu yiri IMF ku tiri marka iyaga laftooda baahi baa dabada ka riixaysa mustaqbalkii ayay eegayaan kuwaydo kale waxay yiraahdeen scientistku markay taariikhdu tahay 2005 kontonka 60 inta u dhaxaysa bila aadan kuma noolaan karo kuwaytiintu imika waxay sameeyeen investment ugu badan iyaga gashaday Yurub iyo Mareykan meel walba dhul iyo waxay ka iibsadaan iyo hanti si ay mustaqbalka ugu noolaadaan waayo climate change-ka waxa la yiraahdaa heerkulku wuxuu gaarayaa Kuwait 2055 markay tahay taariikhdu inta u dhaxaysa 75 degree marka laguma noolaan karo bila aadan kuma noolaan karo mid kale oo jirta biyo la'aan ayaa haysa mid kalena way sii jirtaa dadkan waxba ma beertaan production ma laha saliida ay dhoofiyaan mooyaane wax kale oo adduunka u dhoofiyaan oo ka macaasha wadamada golf kuma jiro haba yaraatee intaas oo dhan waxa hadana dusha ka uwan siyaasadii geopolitics-ka ahayd ee caalamiga ahayd oo ay centerka u fadhiyaan maadaama ilaahay ma garanaysaa meel ku beeray barakaysan oo dhulka maxaan ku idhaahdaa batroolkaasi maanta adduunku ku kala socdo imika gacanta lagu hayo ay joogaan nimankan iyaga Israa'iil la dhulkaasi maartay dagaal xun imika in badan ka dhex taagnaa arrimo badan oo xasaasiya oo caalamiya ba meesha bartankeena u fadhina habeenka caawa waxa laga yaabaa su'aalaha la weydiinayo madaxweynaheenu inaanay wax sahlan ahayn oo ay ka mid tahay xalinta arrimaha caalamiga iyo sidii xal loogu heli lahaa iyo sidii Soomaaliland qayb uga qaadan lahayd mas'uuliyadeeda qayb uga noqon lahayd halka arrintu markay marayso maxaad isleeday waa ila gudboon tahay madaxdeena hadii loo soo bandhigo la yiraahdo okay waxaan doonayaa in la ixtiraafo laakiin dal mas'uuliyadeedii ma qaadi kartaa maanta ma qaabili kartaan qaxoonti nabadgelyada amniga mandaqada ma ka shaqeyn kartaan security-ga ma ka shaqeyn kartaan maxaan ku badda cas xaaladda ka taagan wax ma ka qaban kartaan xoutiyiinta wax ma ka qaban kartaan yani 150 su'aalood oo mid waliba mid kale ay ka daran tahay ayaa la weydiinaya Soomaaliland looga baahan yahay inay buuxiso ma lacag yar baan siinaa iskala carara no imika waxay Imaaraadka waxay leeyihiin aan bixino laakiin waxaanu this time wax ku bixinana wax caalamiya oo mudakara
oo maxaan ku dhahay faa'iidadeeda noogni dalal badanna dhinacyada way kaga jiraan maraykankii baa le waa inay caynkaa samaysaan waxaad bixinaysaan waa inaad waxaa ku bixisaan nimankan waa inay qaybtooda qaataan mas-uuliyadda la dagaalanka maxaan ku dhaha xoutiyiinta ka qayb galaan qaxoontiga maxaan ku idhahdaa falastiinta qaybtooda qaataan arrimo caynkaasa hor oolaya marka dee waxaa laga yaabaa inay islahayn xoogaa lacaga la soo carara laakiin iminka arrintu way adag tahay maxaad is leedahay way la gudma sidee u xallin karayaan haddii iminka arrimaha aan sheegaynay ay ka mid tahay reer gaasa in ay somaliland qayb ka qaadato dejintooda dibadejintooda arrin fudud mayd u noqonaysa cabdiraxmaan mise waxaad is leedahay waa arrintaasi madaxa dhaqdhaqaaqayo waxaana iyaga aaminsan ilaa iminka su-aalaha adag baa ayaa hor yaalla what do you think سعيدة ودي أنا جو حن كلها هي أدون كانوا كملنا international community كان كملنا وحن international community إن جا صارين أبو عبد الرحمن يلدونا ويا ماشان picture بيالا picture كاسو أو قياس دونا دي وحنا لقى الدنيا ذي إنه لا مننا الدنيا ذي إنه كملنا هذا إنه رانا وحنا نقولنا إن outcast دي وحويان دي تاسنا إنكم بينوحن طاي لكن قفكوا قياسيا وحن يا كل سماء dad muslina oo kala kula samee adduunyadii oo dhan baa kula samee waxa lagu leeyahay dad doonaya baa lagu leeyahay hooyooyin daalay oo leh anagu meeshan san burburtay carruurtayada life is too short we just want to live haday dad caynkaasi jiraan oo saan lagu dhigo lagu yiraahdo dadkaas la rabaa meel la geeyo adigana lagu weydiistay inaad bara siiso inaynu diidnaa waa inhumane الدنيا كسر هرجيتا قف روا إنه مال لجيه مركا أنا وحن سلاي عبد الرحمن وعند قف عقل له أو أكاديميكا أو وحن قياسية تمركا سؤال كنت وابس وحس هو الصح يا خالد ما هي وحي أنا تكف إلا الدنيا ولا صوت يا هررك هالكينو كجترنا الدنيا هالكينو كجترنا تروح ويان waxaa laga hadlayaa waa refuujinimo bilaaadnimo qof meel dad la geynayo refuujiya ma diidi karna de wax la diidi kara ma aad baan idin salaaf aad nabiil waya injineerka isna joogin badan injineer soo dhow kadibna idris bilshirana kadib rooble ama qofana cid doonay hadlo cabdilaahi iyo telefoon ka dhex galay oo isaguna qof odayood nagu weyna markasta uu nishindeena way soo dhaweynaa soo dhaweeyna horta assalaamu calaykum waa salaam lamaantiin horta wallahi qadiyadan Falastiin iyo in dhulka laga raro horta three major thing oo ayaa jira oo ka hadlay horta madaxa uu sareeyay ururka carabta uu ka hadlay waxa ka hadlay ninka u qaabilsan qolada xaqtirkeeda Germany-ga oo iyaguna ka hadlay madaxoodii u qaabilsanaa bariga dhexe oo in ognahay halku ka joogo iyo halku ka istaagay dagaalkii Xamaas iyo Israa'iil dhex marayay waxa weeye ma oran karo waray wallahi markaas la riday oo lagu dhawaaqay waxa ku riday makaansa ma tahriir masaaridu la injineero ma maqlaysaa والله تفهم قضية إسرائيل iyo Falastiin waa 70 jirsatay ama 80 bay ku socotaa wax cusub maaha intaasoo dal oo carab oo ku xeeran oo meesha joogaan way jiraan xaaladaasina xaalad maaha dee imika inagu cusub waa arrin soo jireena halkaa markay marayso inagu waxaanu nahay dowlad imika curdina oo rabto weliba inay beesha caalamka ka mid noqoto oo aqoonsi raadisa dabcan dowladnimada dee responsibility iyo mas-uuliyad baa la socota waxaa jira humanitarian